بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسور دواد مركلي برامج قليل قرار وهذا نقول كذا وتان مقلبه يا قرنك داوداش أن جعلنا يتطبات كان برامج قليل قرار وكدوين برامج ديني هراء وحد وجبرتين برامج كنا نقص وقعدنا دجنيال كالدوان ومعلومات كالجدسن حنبارسن لكن تطبات كان عنقص وقعدنا دونا ميت كميدة جامعتها أقوى وين دلك xarumaheedana ay ku yaalaan dhowr gobol gaar ahaan xarunteeda ugu weyn ee ku taal magaalada Muqdisho jaamacadaasi waa jaamacada Green Hope gaar ahaan waxaan si gooni ah ugu faaqidi doonaa kuliyadeeda luqadaha gaar ahaan qaybta afka Soomaaliga oo ah jaamacada kaliya ee bixisa kuliyadaasi leh inta hadda la og yahay markii laga reebo ما جامعة كلا أوديجا مادوين أما مادة أف سومالي هان أوديجا لكن كلية لما يسترن لجوقاته علم أفك سومالي يسوقانتا تا جامعة كلية لجو ديجو كلية داسي وحنا برنامج كمرتي يجوا قدوميها جود جامعة جرين هوب بروفيسور مصطفى معلن عبد الله وأنا أقام هاد علينا يا وقران شاو نجا أقلاده يوليبا إنه وقت جيسا ونو أقلاده إنه برهمش قليل قرال وتضوات كان نجلا قيبلو بروفيسور وكوسو دوينا يا مقلبه يا قرن كيبرهمش قليل قرال وجهرين بالهرت وحربنا النجا إيو برشة داونا يسبرهمش كامبا إن أنا لو ذاكتو قرمالا أساسي جامعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركان تاس أنك جوابه runtii waxaa la aasay 2006 iyadoo xaalad xun soo martay marxalad badan la kulnay alxamdulillah waxaan rabnay ujeedka maanta joogno soo gaarno waana soo gaarnay furitaankeedii koowaad wuxuu ahaa 2006 oo hadda laga joogo 2024 intaas oo soo maray marxalad badan soo marnay hadeerna aan taaganahay meel la taaban karo alxamdulillah furitaankeeda noocaas ah okay waa gartay marka Green Hope ahaan idinka marka la yiraahdo ilaa iyo imisa gobol ay jaamacadani ay ka howlgashaa waxay ka howlgashaa dhanka waqooyiga qardha nooga horeysa Laascaano iyo Garowe Beledweyne iyo Baardheere iyo Xamar iyo kulada laba kampus oo weyn ku leedahay idan ilaahayna waxaan gaarsiin doonaa meel aan meeshii baahi looga qabo jaamacadda Green Hope inaan gaarsiino ballan qaado okay waa gartay gudaha marka laga soo tago jaamacadda Green Hope kuliyada kala duwan ay ka kooban tahay midda maanta qasadkeenu uu yahay oo ah kuliyada luqadaha gaar ahaan qaybta afka Soomaaliga goormee ayay idinku dhalatay in aad bal furtaan qaybtan afka Soomaaliga iyo suugaanta jaamacadda Green Hope miyadoo jaamacadaha la qabta inta faculty baxda waxa uu qaas oo mayanagu ah facultyal ay kamid yihiin criminology school study intelligence afka Soomaaliga tan maanta ka hadlayna oo ah afka Soomaaliga waxaan bixinay dawladda barakatib shahaadooyin batch ah oo Soomaali bayuur ah oo laba dafcad ah dafcadii saddexaadna idan ilaahay maanta bixi doonta sanadkan 2025 bishii lixaad ayaan saari doonaa markii aan su'aashaada soo noqdo ku dhalashada nagu laatay in bilowno markaan aragna afka Soomaaliga inuu sii dabarkooayo ummadda ay ka sii socoto jiilka soo socda u baahan yahay dhaxaltooyo waxaan salqaamnay inaan markaas aan soo nooleyno afka Soomaaliga markaasna waxaa naga horeysay jaamacadda Jigjiga oo bilowday afka Soomaaliga iyo qayb Jabuuti waliba madaxweynihii Ismaaciil Umar Geele iyo Xasan Maxamuud ee dhagax dhigeen akademiyada aga iyagoo rabay in nooleeyo afka Soomaaliga baahi noo timiday dadweyne naga soo gaartay yaan ku fikirnay inaan aan bixino batch Soomaali oo bayuur ah dhameystiran maxamed saad barakatib dawladdiisii waxaan hadda bixinay labada dafcadood saddexaadna waa bixin doonaa marka baahidana soo gaartay oo dadweyne u qabaan iyo afkaas oo sii dhumaya awgeed ayaan u bilownay inaan bixino afka Soomaaliga waa gartay maadaama dalkeena uu dhowr sano soo burbursanaa dhammaan ageebidii kala duwan ee waxbarashada ha ahaato waxbarashada hoose waxbarashada sare ay baaba'een marka idinku ka jaamacad ahaan xagee ama yaa idinka saaciday bal helitaanka manhajka ama duruusta lagu dhigayo kuliyadan afka Soomaaliga manhaj waxa qora dad aqoon u leh
loo xil saaro loo fadhiisiyo ilaahay maantiis annaga jaamacadeena maamulada ugu sarreysa waxaa ka mid ahayba dadkii maxamed siyaad barre wax soo bartay na ku shaqay jiray qorayaashan qaarkood ka mid ahaynay maadaama markaas aan afka soomaaliga wax ku soo baranay kuna naqinay taasna u lahaynay annagaa bilownay in isku soo duwanno agabyadii waxbarashada asaasiga sida jaamacaddii la foolo qaar ka mid ah dadka qorayaasha oo markaas qori jiray qaar ka mid nala jooga annagoo la sii kaashanay dad kale oo waayo arag ah sida cabdalla masuur oo kale annaguna aan ahayn dadkii sidaad bare wax dhigi jiray waxaan isku keen markaas inaan afka soomaaliga aan u samaysano maraj dhammaystiran insha allah waana ka salgaarnay okay marka bilowga ugu horeysay kulliyadda marka aad bilaabayseen dadku jiilkan cusub ee hadda oo dhowr 30 sano ku dhashay xoogaa dad bay waxay la tahay in ay waxoogaa dhayalsadaan bal markii ugu horeysay aad bilaabayseen bal dadka sideed uga dhaadhiciseen in jaamacadda Green Hope ay bilaabayso ama ay furtay qayb afka Soomaaliga iyo suugaanta lagu barto sideeba macnaha dadku marka ay u arkayeen sees uga dhaadhiciseen runta markaan bilaabaynay dadna waa ku faraxsanaayeen oo ayagoo batch wata master wata double batch wata waxay ka doorbideen inay ka salgaaraan afka Soomaaliga barashadiisa iyo shahaadada ka qaataan laakiin dad yaa nagu isfootoona markaas u haystay wax dhalanteed ah ama socodoonin ama ay lahaayeen maxaa af Soomaaliga baran laakiin markii aan dhex galnay qaarkood waa ku adkaatay qaarna waa u macaatay oo waba soo kaleenba face corner waxay u badnaayeen dad qorayaal ka mid ah waliba wax bartay waa jirtaa dad markaas calashaan ay la ahda dhalanteed laakiin markii baasha aan dhab ka sheegnay oo laagu laabnay waxbarashadii soo saarnay dad ay u macaatay oo isbedelkii hore markay ila haysteen si kale u fahmay markaas okay waa gartay marka masalan dhagista afka Soomaaliga waa af isku laabta waa af ay ku jiraan maxaan ku dhahayay amaasiga ereyo shisheeye oo matalan dadkii Soomaalidu ay ganacsiga la lahaayeen ama dhinaca diinta xiriirka la lahaayeen oo carabta ay kamid tahay shiinaha ay kamid tahay hindiga kamid tahay dhinaca gumaysigii waxaa nooga yimid ereyo badan oo ay kamid tahay talyaaniga faransiiska iyo ingiriiska ay kamid tahay sidoo kale luqadda Bershiyanka waxba ugu jira marka bal sideeba idin kugu fududaatay helista macallimiin wax ka dhiga macnaha jaamacadaas waa runta af Soomaaliga waa far badan yahay ereyo ama uu leeyahay asaguna wuxuu leeyahay ereyo isfasira xubnaha afka maltaan oo kale afku shita ku kamid yahay markaan bilownay waxaan xoog ka saarnay sidaan qofku u dhaadhicay naxwiisa grammarkiisa aan sii lahaynay isagoo waliba ereyada sida ingiriiska carabiga kale hal ereyo kale sida macnaha cashaan aunti oo kale oo tii abtisla yiraahayn iyo bar laakiin annagu u kala qaadnay af Soomaaligu far badan yahay uu leeyahay fasiraad badan iyo magacyo kala jooga waxaan xoog ka saarnay sidaan ugu marnaan lahayn laakiin annaga ilaahay maadiis waa u badnaynay dad aqoon hore u lahaa af Soomaaliga ku soo bartay aadna u yaqiinay waxaan markaan qofka aan ka dhaadhicinay af Soomaaliga inuu hodan yahay ummadan u baahan tahay ereyada amaahdaana waxaa loo qaataa erey ahaan loo isticmaalay sidiisan ku wada laakiin afkeena Soomaaliga yaan soo bandhignay xoogana saarnay annaguna waxaan ahayn dad macallimiin taqasus leh Professor Tooco iyo aniga iyo nin la yiraahdo Maxamed Sacbo Weyne iyo waa badnaynay iyo macallin jigjiga nooga yimid oo la yiraahdo Ustaad Sultaan runtii waa ka mir dhalan alxamdulillah afka Soomaaliga waa adag yahay laakiin wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh kala dhigdhiga sharaxaadtiisana yaqaan ummadana deeqsi kara alxamdulillah annaga u badnayn dadka cashaan aqoonta Soomaaliga taqasus lahayn uga badnayn okay dhinaca kale marka aad jirto dadka daraasiya afka Soomaaliga waxay qabaan fikrado kala duwan مثلا بروفيسور عبد الله عمر منصور قير الله سيي oo ah shakhsiga ugu badan ee daraasad ku sameeyay afka Soomaaliga iyo guud ahaanba bulshada ku hadasha ama bulshada Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay kala duwanaashada inaysan ahayn wax aad u sii qoto dheer dad badan waxay qabaan in kala duwanaasho badan ay jiraan afkii wax lagu soo kordhiyo مثلا waxyaabaha la isku haysto waxa kamid ah xarfaha la balaamo oo hadda anagu aan naqaano 7 oo la isku yiraahdo manala garaadba la isku yiraahdo markii macnaha la tilmaamayo laakiin xarfo badan oo waxa jira
labalaama oo laakiin afka soomaaliga u saqaan bal idinku ardadii aad waxbarayseen bal sidee waxyaabahaas ileen dadku waxbay akhriyaan waxbay dhiigtaan waxbay macnaha la socdaan social media galaan sidee marka ardaydii aad u dhigayseen iyo kala duwanaanshahan fikradaha buugaagta badan ee jirtahay sidee macnaha ay idin saamaysay waxaan taas aan kaleeyahay waa sax xarfaha labalaabmo waxaa ka mid a ba'da da'da ra'da ga'da la'da ma'da na'da xarfo kale waa jiraan oo la kala muujin sida magka marka ga'da lasoo qaato kale cabdalla masuurna maalintan bilownay ilaa hadda waa nala joogaa waxbuu ka dherandheriyey annaguna waxaan aan ka siinay qofka bini aadamka inuu afka soomaaliga hodan yahay xarfaha amaahda iyo kuwa calishaan labalaabmo iyo xarfaha oo isku dhihidda ah laakiin kala dhigidda ah waa fahamsiinay xarfaha laba dhaco kale waa fahamsiinay waxaan runtii aan siinay aqoon waafi ah markaasna calishaan dadka waxay markaas u haystaan af soomaaliga inuu yahay af yar oo lagu hadlo marka kan lagu hadlo af suuqa ah iyo kan la qora waa kala nuuc runtii aad iyo aad u fahamsiinay alxamdulilah annana waa ka mar dhalanay ereyada waxaa jira marka calishaan erey layaa afguri oo qolo u qaasa iyo erey international ah afguriga markaas laga yaabay inuu calishaan dadka isla fahmi karaan laakiin dadka meesha deegaanka ku ah iyo u qaas yahay laakiin muhiimku wuxuu yahay in ereyga la sheegay la fahamsiin karo qofka la soo fahmi karo isla qaadan karo okay waa gartay dalku wuxuu leeyahay wasaaradda waxbarasho inkastoo hadda la qoray manhajkii hoose dugsiyada sare ilaa dugsi dhexe la qoray oo weliba dugsiga weli aysan qabyinan qaar ka mida maadooyinka ay ku baxaan af English ay ku baxaan marka idinku ka jaamacad ahaan bal wasaaraddii sidee bay macnaha aad ula falgasheen maadaama hadda uusan jirin manhaj diyaarsan oo luqadda soomaaliga ku diyaarsan ama aysan jirin jaamacado bixiya maadadan kulliyadan bixiya afka soomaaliga bal sidee baa jaamacadda idinka wasaaradda idinka aad ula falgasheen yaaceen bahda waxbarashada runtii talada abuurmay iskuulo la furay inkastoo iskuuladaas ay calashaan manhajyo kala duwan dhigayeen sida sacuudiga qaar dhigay suudaanta qaar dhigay manhaj kala duwan dhigi jira markii hore markii jaamacadu ku soo batay mar labaad waxaa la isku dayay in la mideeyo manhajkii wasaaradda noogu horeysay oo soo rogtay in calashaan afka soomaaliga loo dejiyo dugsiyada hoose dhexe sanaday soo saareen waa loo sii fikiray ilaa foonfori ku tareen afka soomaaliga wasaaraddu marka waana ogeeda markaan furaynay waana la socotay weliba xafladihii waa ka qayb gashay aad ayay noogu hambalyaysay iyadaana noogu horeysay oo afka soomaaliga dugsiyada hoose dhexe ku bilowday markaasna annaguna waxaan haddana xoog ka saarnay inaan sii adkayno in ummadda ay ku barto afka soomaaliga inta wax ku dhigto af soomaaliga ama hadda u soo taagan inay dadka fahamsiido waa labada akademiya fanka suugaanta akademiyada aga soomaali been dhaxal reeb iyo green hope runtii green hope marka kaalin weyn ka qaadatay wasaaradduna waana ogeeday alxamdulilah waana noo hambalyaysay xafladan waxay ka dhigtaa waa soo joogna insha allah waana og tahay shahaadooyinkan bixinayna waa tasdiiqiyeen weliba iskuullada maanta iyo jaamacadaha ardayda aan waxbarno afka soomaaliga ah ilaahay maanta isku wareegay oo wax badan baxsharo badan baxsharo okay waa gartay markaan soo qaadano waxaa uun xariga laga jaray sida looda og yahay oo soo bilaabay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo xarunteedii magaalada Jabuuti laga soo raro Muqdisho la keenay akademi goboleedka afka aga oo hadda uu hormuud ka yahay Cabdalla Cumar Masuur idinka markaa ka jaamacad ahaan aga iyo idinka maadaama ay qaabilsan tahay horumarinta afka Soomaaliga maxaa xiriiro idinka dhaxeeya qaab noocee ayaad wada falgashaa maadaama aad wada tihiin dad soo nooleynaya afka Soomaaliga akademiyada afka Soomaaliga digta akademiyada runtii bilowgiina waxbay ka bilowday weliba akademiyadaas aga waxaan ka mid ahay dadka wax bartay shaqaalaheeda labaadii dhowr arday ka mid ahaaday oo shaqaalaha ka mid ah bilowgiina waxbay ka furtay Cabdalla Masuur noola joogay xafladihiina asiga ka mid ahaa weliba seminaaran kusoo qabanaa akademiyada goobteeda waxbarasho marna iyaga noo yimaada xafladihii Ismaaciil markii la yimaadeenna waa ka qayb galnay aad iyo aad gacan saar u leenahay akademiyada afka Soomaaliga akademiga goboleedka iyo annagu gacan saar weyn leenahay insha Allah dila yiraahdo okay
marka aad fiiriso maanta jiilkan cusub dhowr iyo soddon jirka ah ama dibadda ku nool ama dalka gudihiisa joogaahi oo inta badan adeegsada aaladan la yidhaahdo baraha bulshada qaabkay wax u qorayaan waad aragtay sida macnaha loo adeegsanayo kelmadihii oo caynti magaca lab iyo dhadigii kala saaristeedii aysan dadka iyo raacsiintii ereyga markii macnaha magaca qodob uu raacayo iyo markuusan raacaynin iyo macnaha falkii sida uu galayo falkaabkii maxaan ku raadayay magac u yaaladii wixii dadku siyaabo kala duwan ay u adeegsadaan marka idinku ka jaamacad ahaan markii laga soo tago kuliyadaas mugyo maxaa kaloo idinkaga qorshaysan bal afka Soomaaliga inaad ugu hiilisaan insha Allah sidaan u bilownay waaye kama hari doono waxaan sameyn doonaa wacyigelin badan in gobolada gaarsiin isku dayi doonaa waa arrin qoraalada qoran oo badan ee dadku qoraan ma dhameystiran oo ma saxna laakiin waxa muhiim ah in laga raaco ujeedka oo qofku u tan lahay qoraal markuu qoro waa fahmi kartaa laakiin qoraal ahaan waxa ku jira ereyo badan oo qaldan oo u baahan in laga saxo sida bilowga xarafka weyn la bilaabayo marka warqadda gees la joogo tiidhinaashay sheegaysay joogsigii hakadkii calaamadu fajici intaba ku wada qoran tahay laakiin ma muujiyaan badanaa calaamad su'aala kasi ku jirta oo ka mid ah ereyada lagu muujiyo qoraalka marka qoraalada badan waa aragnay ay qoraan qorooyinka bulshada ama darbiyada lagu qoro dhan markaad fiirido waad arkaysaa in qalad ku jiraan laakiin ujeedkii u lahaa in fahmi kartaa maahe qoraal ahaan in qalad waa fahmi kartaa idan ay waan sii doonaa kiina soo gaarna waa toosin doonaa waxaan sameyn doonaa wacyigelin badan insha Allah si loo soo afka Soomaaliga oo uu cirib ku in ummadana la gaarsiiyo waa isku dayi doonaa insha Allah dila yiraahdo sidee baad u aragtaa marka magaalada Muqdisho aad joogta professore waad dhex martaa waad ku dhaqan tahay waad ku nooshahay magaaladii dhammaan goobaheena ganacsigu waxa ku qoran luqad shisheeye adigu maadaama aad tahay shakhsiga ugu sareeyay jaamacadan oo haddana ahay ka mid ah dadkii afka Soomaaliga wax ku soo bartay haddana meesha uu mas'uulka ka ahay ka bilaabay kubcinta afka Soomaaliga dareen noocee ah ayay ku abuurtay markaad aragto goob ganacsi oo qof Soomaali ka adeegana qof Soomaalina uu leeyahay oo magaceedu uu yahay magac qalaad runtii arigaas waa inoo dhibaysaa tarbiyada dukaamanka maqaayadaha goobaha ganacsi qof kasta meel furto waxay ku qortaa ereyadaas laatiinka ah oo afqalaad ah laakiin waxa ugu qurux badan aad iyo aad in afkeeda ay ku qorto sababtu waxay tahay kan dukaanka iska leh ama goobta waxbarasho iska goobta lagu shaqeynaa iska leh waa Soomaali kan soo galana waa Soomaali kan la fahamsiina darbiga uu ku akhrisan waa Soomaali marka kuma haboono 100% laakiin waxay ka mid tahay xayeysiinta loogu tan leeyahay in ummadda lagu soo jiito waxa ugu qurux badan inuu afkiisa ku qorto qofka uu dhaadhiciyo oo ku tuso arshaan waxa meesha laga helay magaceeda uu ku sheego yaa 100% ugu qurux badan insha Allah waana gaari doonaa ummadahu ayaga afkooda hormarsiista wadankooda hormariya jiilkooda dambe dhaxaltooyo siiya annagu marka waxaan ka tagnay taariikheennii dhaqankeennii hidihii afkeennii marka waxaan isku dayi doonaa idan ilaahay sidaan u bilownay inaan soo noolay doono laakiin afka waxa aad u noolay kara markaas dawladda in arshaan fan ku bixido amar ku bixido qofkii wax bartay ee ku shaqo siido si arshaan afka qalad u istaago afkeena u soo nooleysano xoogan saari doonaa insha Allah howl waa la wadwadaa cid kulowda way meeysid laakiin hadii laga aamuso yaa laga yaab in wax dhumaan laakiin wax isku dayi doonaa in wadwadno ilaa ummaddu ka fahamto cidna garab sidaan ka helno kama cajisto doona insha Allah dila yiraahdo waxaa jirta marka laga hadlayo jaamacad oo la yiraahdo meeshaas jaamacad ayaa ka furan marka laga soo tago qaybaha kuliyadaha ay ka koobanta iyo culumta lagu bixiyo waxyaabaha laga fisho jaamacadahaas waxa kamid ama jaamacada laga fisho ama jaamacada oo dhan lagu yaqaan wax la yiraahdo cilmi baaris afka Soomaaligu waa uu la qoray 1972 waa la qoray asagoo wali koritaanka ku jira ayaa dawladii ay ka baabaaday qof iyo labana ma aha wax ay hormari karaan ama ay cilmi baaris ku sameey karaan idinku ka jaamacad ahaan qaybtan afka Soomaaliga in aad u sameysaan qayb cilmi baaris ah oo afkii daraasad ku sameysa
laysku dayo in la abuuro ereyo cusub oo lagu bedelo ereyadan qalaad ee dhiiga ama amahasiga noogu yimid in lagu bedelahay qorshaha midinku ku jirtaa ereyada waa laba nooc midna waa oo markaas magac waa magaciisa hadii misaal magac loo baxsho shayga haddaad ku sheegto ingiriis ama carabi ama soomaali waa magaciisii cabdi oo kale taa miisaalnira haddaan carabi ku sheego kale waa cabdigii haddaan ku sheego ingiriis waa cabdigii haddaan ku sheego soomaali waa cabdigii magaca noocaas waa iska jira laakiin afkeena waxa ka maqan erayo la sheegay in badan sida daad oo kale markaan la wadalaan wadaan kadaal markaan la maxaa dhimay meeshaas eragaas waa maqan yahay idan ilaahay marka erayo noocaasa waa ku tala jirnaa haddii misaal aan karabna helno kana caajisin ilaa wasaaradda aan la kaashano ugu dambeyn dawladda gaarto waxaan ku jirnaa hadda soo kobcin soo noolaasho dawlad ahaan af ahaan iyo waxbarasho ahaan idan ilaahay waxaan isku dayi doonaa in markii nabad la helo lacaga dhigto laga sal gaaro nabadda in loo fariisan doono baxda waxbarashada hadda waxaad moodaa waxbarashada markaa soo bilaabaynay nabadna ma jirin runtii laakiin waxay noqotay dhiig joojin weyn noqotay dad badan oo qori qaada lahaa ayaa qalinka qaatay waxaan fahamsiinay waxay nabadu tahay wuxuu horumarku yahay wuxuu yahay wadaniyadu waa laba eray wadani iyo wadaniyad markaan ka soo qaado wadanigu waa ninka u dhashay wadanka iska leh dadka ku dhashay ku dhaqan ah ku dhiig ah ka dhashay laakiin wadaniyadu waa rabitaankii xiisihii wadanka ama jaceylka u qabtay dareenkii qofka xamaasad ku jirto waay waa gaarsiin doonaa ummad badan oo wadaniyad leh inaan soo saarno ama ummadda fahamsiin waa isku dayi doonaa waxaa maqan waa dhammaystiri doonaa hawsha mar mood u dhamanta laakiin waxay rabtaa bilow fiican bilowga meel fiican noo mar insha allah waana gaari doonta ila yiraahdo okay waa gartay hawl horta sideeda in la qabtaayo ma sahlana oo Soomaalidu waxay ku mahmaadaan meel hal lagu qalay ma hadal yara mana hawl yara mana hugun yara professor waxaan ka rabaa marka su'aashan ku weydiin rabo waxa ay tahay waa maxay talada aad ku biirinayso in afka Soomaaligii la kobciyo afka Soomaaligii dadba waxay aaminsan yihiin inuu afka sii dabar go'ayo oo sii baaba'ayo dadba aaminsan marka waa maxay adigu talada aad isleeda aad soo jeedinayso qodobo ah oo aad leedahay 1 iyo 2 afka Soomaaliga wadadan jidkan ayaa loogu hiilin karaa lagu soo nooleyn karaa korna loogu qaadi karaa waa sax hadda waxa jirta ama Mareykanka oo kale ama calashaan wadamo badan arday ka qalin jibiyay facekii hore oo markii afka Soomaaliya bilowna maqashay na soo wacday soo tirsadaan wakiilo online ku siinay shahaadooyin ku qaatay dadka waxa ku kalfay iyagoo wadan kala jooga waxay u baahdeen turjumaan inay Soomaali yihiin afkii wadankaas iyo af Soomaaliga u turjuma waxa lagu xujiyay cadayn ah inuu shahaado ka haysto markaas afkiisa ama codku ka turjumayo inuu aqoonsi ka haysto sidaas ku kaliftay waa noo yimaadeen casharo waafiya qaateen qaar online ku siinay shahaado waxa qaateen Soomaali ah inuu Soomaali yahay aqoontiisa Soomaali tahay waxaan markaa ku baraarujinay afka Soomaali lagu hormari karo number 2 qofka af Soomaali ku bartaa waanu ku shaqo helaa shaqo lagu siiyaa labo xafiisyada ku yaala Soomaaliya ama dawladda laga maamulo warqadii qoraan waa xafiis kale ninkii u qoran waa Soomaali isna waa Soomaali inuu ku qoro marka afka Soomaali ku qoro oo codsiga ugu jeediyo wuxuu rabo uu ku qorto baahideeda kaas uu ku aqristo ku soo jawaabo laakiin laba xafiis Soomaali ku taala in Ingiriis lagu qorto xagga lagu geeyo waxay sameynaysaa saameyn ah tabarkuintii afka Soomaaliga tan ka soo horjeedna waaye waxaan isku dayi doonaa anagu bilowga hadaad bilowdo waxaad heli doontaa wehel garabku siiya waxaan isku dayi doonaa idan ilaahay afka Soomaaliga in ka sal gaarno dadkeena deeqsiino afqarad waa loo baahan yahay waxbaad rab ku samaysan laakiin wadanka markaad joogdo waxaa waajiba afkaada in wax ku dhigto wax ku qorto qof ku codsato lagu soo jawaabo waxna ku weydiisato haddii misaal intaa dawladdu ay samayso oo lagu soo rogo in lagu maamulo xafiisyada xamar ku yaala in warqadda codsiga lagu qoro Soomaali lagu soo jawaabo aad u soo noolaan doona dawladdu waa ugu baraarsan tahay xubno badan aan kala shirnay in afka Soomaali soo nooleeyo insha Allah waa noolaan doona ilaa yiraahdo
wax yar aan waxaan jeclahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaray inaan xusuustana dib u celino waagii hore oo aan wax baranaynay waxaa jira wax la yiraahdo sanduuq boosto ama wasaaradda boostada ay lahayd dal iyo dibadba ka shaqaynayso warqad la isku qoraa hadda maanta ma jirto maanta waxaa la adeegsadaa WhatsApp Messenger Telegram waxaa la adeegsadaa maqnaashaha sanduuqa boostada iyo waraaqihii la isku qori jiro dal iyo dibad la isku qori jiray maqnaashahooda ma isleedahay waa qayb ka mid ah dhaawaca gaaray afka Soomaaliga maalkii la fudeysada waaye waa mid loo baahan yahay waxaan qorina WhatsApp-ka ama calashaan fax ku qorinayo waa internet waana go'i karaa qadku ka baxo connection tii waa qad ka baxo waxa dhumaayo wax alla wixii markaas kugu kaydsanaa ama aad ku qortay ama gudbida laakiin sanduuqa boostada waxaad ku shubatay wax qoraal cad waaye idan ilaahay waa soo celi doonaa waxa laga fudeysado loo hol fudeysaday calashaan internetka la isticmaalo iyo warqadaha la isku dhaafsado iyo xogtii lagu xariisto kombiyuutarka laakiin waxay noqon doonta in loo noqdo sanduuqa sababtoo ah kan waa isdhaqi karaa waa bedelmi karaa qadka go'i kara waa wax calashaan la isku halay karin laakiin sanduuqii waa la isku halay karo waxa oo ku cad oo ku qoran oo kugu jira laguna gudbi karo idin ilaahay uu noqon doonta la yiraahdo okay waxaan rabaa maanta waxaad nagala joogtaa bahdii waxbarashada adaana maanta macnaha muuqaal baahiyaa nasiib u yeeshay gaar ahaan barnaamijkan qalin qoraal inaad aad qayb ka noqoto waa maxay fariinta aad rabto inaad gudbiso guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ama dawladda waa aad iyo aad fariin qaali ah maadaama hay saakay bahdii waxbarashada waxaan dhihi lahaa number 1 ummadda Soomaaliyeed xoogga saarto sidii abni loo heli lahaa qof kastaba abniga deeqa meesha nabad taalo caafimaadna waa laga helaa waxbarasho waa laga helaa laakiin haddii abni la waayo caafimaad ma jiri doono waxbarasho ma jiri doonto taas waxaan leeyahay number 1 sidii qof kasta ee Soomaaliyeed oo u tabaal lahayd nabad ha isku taxalujiyo numberka labaad waxaan leeyahay qoraalada la qorayo in lagu qorto afkii Soomaaliga sanaadiqtii lagu kaydsado ay fayl ku wada jiraan document dhameystiran taasna waa soo celin lahaa tan kale maadaama qowmiyad jirta aan nahay marda dawladda sheegto dawladdu waxa waaye waa dal iyo dad iyo xukun dhameystiran haddii dadkaas markaas calashaan wadanka uu leeyahay oo hormarsanin waxay ma doonto wax badan oo daba yaala aqoon darrada waxaan marka faraya ummadda Soomaaliyeed in nabadda ku dadaalaan aqoonna ay siyaasadaan tan kale dawladda waxaan fari lahaa maadaama baxdo barashada aan ka socdo maanta wadankeenu lacag ma laha waxaan isticmaalnaa e-visa isticmaalnaa oo maqaad lagu cunaa baar lagu raacaa dukaan wax looga iibsadaa haddii internetka go'o ama dab la waayo waxaan leeyahay qof kasta oo markaas iyadoo gaajaysan suuq mari doontaa qof lugayda qof calashaan cunto ku bedelata waxaan fari lahay muhiimadda koobaad anoo dawladda u soo jeedinaya codsiga maadaama baxdo barashada socono in wadanka lacag aan u helno lacagtaas oo waliba si dhaqsaa in loo baadi koob ku fiican tahay wadamada kale waxay leeyihiin lacag u qaas ah e-visa iyo lacag qalad lacagtii qalad waan haynaa e-visa waay laakiin waxa naga maqan lacagteennii ka turjumaysay wadaniyad sheen Soomaaliga naga maqan oo ka turjumayo inaan nahay dad lahaansho dawlad iyo wadan iyo dal aan ka turjumayno lacagtaas in la helno waxaan ka codsanaynaa dawladda insha Allah hadii la yiraahdo assalaamu calaykum warahmatullahi وهجاج آدي آد أيوم مهتسين كاسي وحو أها بروفيسور مصطفى معلم عبد الله قدوميها جامعة جرين هوب أو تطبيقات كان مرتي يجوا برامج كنا قلي قرار أو أنكسو قاعدني كلية علمية أفكا الصومالية جامعة جرين هوب أو جامعة كلية بحسا قيبتاسي أفكا الصومالية يسوقان تبحسا gudahaan barnaamijkeenii qalin qoraal toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynaa mid ka mid lamid intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo waa mahadsantahay professor